ay qaadan doonaan oo ka jawaabi doonaan waxaan taaban doonaa dhinacyo badan oo dhalinyarada khuseeya dhammaan dhalinyarada sharafta leh halkan uga soo qayb gashay barnaamijka aan halkan ay ku qabteen hay'adda ama organizationka Saymo waxaan leeyahay marka ugu horeysa aad u mahadsantihiin iyo dhammaan mas'uuliyiinta ururka soo qaban qaabiyay barnaamijka Saymo gudoomiyahooda iyo xogaayahooda iyo xubnahooda iyo wujuuda quruxda badan barnaamijka soo qayb gashay dhamaantood waa salaamaya marka waxaa jira qaacido la yiraahdo triple Q ninka dhalinyarada ah wadanka wuxuu uga qayb qaadan karaa dib u dhiskiisa waa 3 triple Q tan koowaad waxa weeye inuu ku difaaco qalin tan labaadna waxa weeye inuu ku difaaco qoray tan saddexaadna waxa weeye inuu ku difaaco qowl ilaa iyo intee ay dhalinyaradu ka qayb qaadan kartaa ilbaxnimada bulsho odayaashii jiilka inay u baneeyaan ay mataqaana quraasta iyo meelahay joogaan ay ugu bedelaan dhalinyarada ayaga loo baahan yahay haddii 20 sano 30 sano 18 sano ama 8 sano aan halkan kursi aniga aan fadhiyo aan ku gaboobo ninkii halkan 18 sano ku qaangaaro 20 30 oo maalin walba anigu kaliya jeebkayga wax aan ka siinahay taas cadaalad ma noqonayso marka waxa haboon wadan walbana wuxuu masdar ka dhigtay ama marjic ka dhigtay dhaqankiisa iyo qaabka ummadiisa ay u samaysantahay way kala duwan tahay sida bii'ada iyo environmental ku kala duwan yihiin iyo ay ummad walba u kala duwan tahay dhaqankeeda iyo goobta ay ku nooshahay iyo qaabka ay ilbaxnimada u baahan tahay way kala duwan tahay marka xilliban waxaan ku weydiinayaa dawladdu door ma ku leedahay in ay dhalinyaradu barabaxdo ama barakacdo oo dalkii ka barakacdo iyadoo aan helayn facility badan oo ay ka mid tahay shaqo la'aan la sameeyo waxaan maleynayaa inay tahay boqolkiiba 75 waa dhalinyaro xildhibaanku wuxuu ka dhawaajiyay in ay dhalinyaradu soo xaq u soo wada barakaceen oo yacni yadhahay rajada ay u laabanayaan wadanka waxa ka jirta amni darro ma isdhihi ka doorkii dhalinyaradu ay ku lahaayeen waxay ka gabeen waayo haddii ay heli lahayd dhalinyaro isku duuban oo hal meel uga soo jeeda amniga dalka inay soo noqon lahayd rajada ay aan weydiinayaa aqoon-yahanka Cabdiraxmaan waxa waaye wuxuu ka dhawaajiyay tiknoolajiyada iyo cultural oo yiri dhaqankii laga soo guuriyay miyiga ayaa ilaa hadda Soomaalidu u diidan inay horumar samayso ma dhihi karnaa tiknoolajiyada iyo social media maanta aan isticmaalayno wuxuu dhalan rogay ama uu bedelaba gabi ahaanba dhaqankii Soomaali ay lahayd ha noqoto mid bulsho ha noqoto mid waxbarasho ha noqoto mid dawladeed whatever ka imaato waxbarasho dhan kasta oo ka soo noqoto Soomaali ma dhihi karnaa social media iyo western transfer kan dhaqanimada laga soo guuriyay ama ardadan dhalinyarta banaanka u baxday dhaqamada ay keeneen wuxuu bedelay dhaqankii gudaha Soomaaliya ka jiray waxay tahay su'aashii Axmed weydiiyay dawladdu door ma ku leedahay in dhalinyaradu ay wadanka ka qaxaan ama ay ka taaribaan of course anigu waa oran karaa sababtoo ah 30 sano ka hor wadanka wixii ka dhacay waa la ogaa burbur baa ka dhacay intaas oo dhan waxa geystay waxa ahayd dad institutionada ka tirsan iyo dad waxa weeye banaanka ka ah horta khaladka ugu weyn ee dhalinyarada Soomaaliyeed laga garan halkaas ku dhacay waa sax ma dhahayn khaladkaas soo dhacay laakiin waa inaan isweydiinaa sidee buu khaladkaas aan dhalinyaro ku sii karnaa Maariyaad dadka ugu badan waa dhalinyaro kuwaas oo kan ugu roon doonaya waxbarasho kuwa kalena ay u socdaan safar kale dibadda ah marka ma la dhihi karaa dhalinyarada way ka gaabiyeen doorka ay ku lahaayeen bulshada haddii aan u guda galo su'aashayda runtii waxaan ka hadalnay khayraadka uu wadankeenu leeyahay iyo fursadaha shaqo ee ka bannaan in aan haysano fursado shaqo aad u badan kaliya aan u baahanahay in ay dhalinyaradu la yimaadaan hal abuur haddana saa ay tahay dhalinyaro badan oo waxaa jirta u hanqaltaagaya inay wadamo shisheeye aadaan oo aan u muuqanaynin khayraadkaas iyo fursadahaas aan haysano haddaba su'aasheedu waxay tahay sidee baan dhalinyaradaas looga dhaadhicin karaa ama ay u aamini karaan in ay fursado badan oo ay ku shaqaysan karaan ay ka jiraan wadanka.